ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ah ayaa la laayahay kadib dhulgariirkii Turkiga halkaasoo in ka badan 5,000 oo qof ay ku dhinteen sida ay sheegeen saaxiibo iyo arday. Cawaale Ahmed Darfac oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Gaziantep ee koonfurta Turkiga ayaa waraysi uu siiyay VOA ku sheegay in la laayahay 12 arday wali 3 ayaa la badbaadiyay oo hadda kooma ku jira. Waxa la sheegay in ardaydu ay ku sugnaayeen agagaarka jaamacadda iyo guryahooda iyadoo dhimashada dadka Soomaaliyeed aan wali la xaqiijin. haddana waxaa jira dhaawac aad u badan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga tacsiyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan isagoo dadkii ku dhaawacmay u rajeeyay caafimaad degdeg ah. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.8 magnitude ayaa ku dhuftay koonfurta dalka Turkiga iyo waqooyiga Syria saacadii hore ee Isniinta iyadoo inta badan dadku ay hurdayeen guryahooda. shaqaalaha gurmadka ee degdega ayaa hadda si wada jir ah isugu dayay inay ka badbaadiyaan dadka ku hoos jira burburka kadib kumanaan dhismo ah oo dumay. waxaa jira cabsi laga qabo in dhimashadu ay gaarto 5,000 iyadoo la filayo inay ka kororto intaasi. tirkoobkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in dalka Turkiga ay ku nool yihiin 5,500 oo qurbo-joog Soomaaliyeed kuwaasoo inta badan ah arday. dhanka kale 3 muwaadin oo British ah ayaa la laayahay kadib dhulgariirkii Turkiga oo ay ku dhinteen in ka badan 5,000 oo qof sida ay sheegeen xogayaha arrimaha dibadda dalka Ingiriiska. hadal uu u jeediyay aqalka baarlamaanka James Cleverley ayaa sheegay in xafiiska arrimaha dibadda uu taageerayo ilaa 35 muwaadin oo British ah oo dhacdadani ay si toos ah u saameysay. koox ka socota UK oo baadigoob iyo samataan bixin ah ayaa loo daadguriyay Turkiga si ay gacan uga geystaan badbaadinta dadka weli nool. sidoo kale boqor Charles waxa uu u diray ducadiisa gaarka ah dadka ay saameeyeen dhulgariirkaasi. boqorka ayaa hadal uu soo saaray ku yiri fakarkeena iyo ducadeena gaarka ah waxaan la garab taaganahay cid kastoo ay saameysay musiibadan dabiiciga ah hadday dhaawac tahay ama hantidooda ku burburtay. sidoo kale waxaan la garab taaganahay taageeradeena ciidamada gurmadka iyo kuwa gacan ka geysanaya gurmadka. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ayaa ku dhuftay koonfurta dalka Turkiga iyo waqooyiga Syria saacadii hore ee Isniinta xilligaasoo dadka inta badan ay hurdeen guryahooda. shaqaalaha gurmadka degdega ayaa hadda si guud ah isugu dayay inay badbaadiyaan dadka ku hoos jira burburka. tirada dhimashada ee 5,000 ee ku kala baahsan Turkiga iyo Syria ayaa sii kordhaysa. isagoo sharaxaya jawaabta UK xogayaha arrimaha dibadda ayaa xaqiijiyay in 3 muwaadin oo UK ah la laayahay 35 kalena lala tacaalayo isagoo intaasi ku daray suurtagalnimada in khasaare ka badan intaasi uu jiro. waxa uu sheegay in ka badan 6,000 oo dhismo ah inay dumeen intii lagu jiray ama kadib dhulgariirkii iyo kaabayaasha korontada iyo gaaska oo si weyn u burbureen. dowladda Turkiga waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxayna codsadeen kaalmo caalami ah oo la mid ah baaxadda xaaladda ay wajahayaan ayuu yiri Mr. Cleverley. waxa uu markii ugu dambeysay sheegay in dowladda Ingiriiska ay sidoo kale kordhin doonto dhaqaalaha ay siiso ururka difaaca madaniga ah ee koofiyadaha cad ee Suuriya si ay u taageeraan howlgalladooda wax ka qabashada xaaladaha degdega ah. inkastoo uusan sheegin tirada lacagta ee la siin doono, dagaalada sokeeye ayaa sii adkeynaya xaaladda dhulka Suuriya iyadoo UK aysan si toos ah u marin waqooyi galbeed halkaasoo inta badan u kala qaybsan dowladda, kooxaha mucaaradka iyo maleeshiyaad. ururka White Helmets waxaa la aasaasay 2014 intii uu socday dagaalka waxayna ay ka kooban yihiin mutadawiciin ka caawinaya daadguraynta dadka rayidka ah iyo howlgallada goobidda iyo samata bixinta qaraxyada kadib. tan iyo kulantii dambe aniga iyo bahda wargeyska Manla Juba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. nabadgelyo.